wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kasta aad joogtaan halkani waa Samawada TV ku soo dhawaada falanqaynta arrimaha siyaasadda iyo sirdoonka caalamka qodobada wararkeena waxaa kamid ah qaramada midoobay oo maxkamad la tiigsanaysa jaamacad uu maamulo Cali Maxamed Geedi dawladda federaalka Soomaaliya oo war kulul ka soo saartay weeraradii lagu qaaday Saudi Arabia Iran oo saldhig badeed ka samaysanaysa badweynta Hindiya iyo Mohammed bin Salman oo laga xaday dukumeenti ay ku jirtay sir badan oo xasaasi ah ku soo dhawaada daawadayaal warkii oo faahfaahsan saxaafadeed ka soo baxay xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in qaramada midoobay aysan wax xiriir ah la lahayn jaamacad lagu tilmaamay inay qaramada midoobay leedahay oo uu maamulo ka yahay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cali Maxamed Geedi iyadoo laga jawaabayo su'aalo nala soo weydiiyay waaxda qaramada midoobay ee Soomaaliya waxay cadeynaysaa in uusan jirin xiriir ka dhaxeeya hay'adda qaramada midoobay iyo wax loogu yeeray jaamacadda qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa lagu bilaabay qormada war saxaafadeedka sidoo kale qormada war saxaafadeedka waxaa lagu yiri in si sharci ah loo adeegsado astaanta qaramada midoobay waxay ku suurtagali kartaa oo kaliya in la ogolaado codsi aad u adag iyo in la maro nidaam ku xiran in fasax qoraal ah uu ka soo baxo xogayaha guud ee qaramada midoobay jaamacadda qaramada midoobay ee Soomaaliya Yunus ma aysan codsanin xogayaha qaramada midoobeyna uma uusan fasixin inay magaca ama astaanta qaramada midoobay u isticmaasho ujeedooyin ganacsi ayaa lagu yiri war saxaafadeedka qaramada midoobay jaamacadda cusub ee laga furay Soomaaliya ayaa wadata astaanta caanka ah ee qaramada midoobay waxayna mas'uuliyiinteeda hore u sheegeen inay hoos tagto hay'adaas caalamiga ah bayaanka ka soo baxay UNISOM ayaa sidoo kale lagu sheegay in uu socdo dadaal ay qaramada midoobay maxkamad kula tiigsan doonto maamulka jaamacaddaas xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya wuxuu ku howlan yahay xiriirro uu la sameeyay maamulka jaamacadda Yunus iyo mas'uuliyiinta u martigeliyay website-ka caalamiga ah ee ay ku leeyihiin internetka waxaana xiriirkaas la mid ah la sameysay dhammaan bogagga kala duwan ee ay ku leedahay baraha bulshada ee sida aan fasaxa loo haysanin loogu isticmaalo magaca iyo astaanta qaramada midoobay sidoo kale qaramada midoobay waxay sharciga la tiigsanaysaa jaamacadda Yunus si arrintaas loo joojiyo xaflad la qabtay 12 bishii May ayaa lagu dahfuray jaamacadda waxaana ka qayb galay mas'uuliyiin uu ka mid yahay gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka federaalka Soomaaliya Mahad Cabdalla Cawad ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Professor Cali Maxamed Geedi ayaa munaasabadaas ka sheegay in jaamacaddu ay faa'iido weyn u yeelan doonto ardayda ka baxay jaamacadaha gudaha Soomaaliya wuxuu yiri jaamacaddan curdunka ah waa guul u soo hooyatay ummadda Soomaaliyeed waxayna buuxinaysaa baahidii ardayda Soomaalida ee marka ay jaamacadaha ka baxay dalalka dibadda u raadsan jiray shahaadooyinka heerka labaad ee masterka iyo PhD-da taasoo juhdi badan iyo shaqaale badan uga bixi jiray sidoo kale Geedi wuxuu sheegay in jaamacaddu ay qayb ka tahay howlaha ay qaramada midoobay ka wada Soomaaliya waxaan hambaliyo leeyahay ardayda sanadkan bilaabaysa akademiyada qaramada midoobay ee Soomaaliya akademiyadana waxay ka mid tahay ururada ku midaysan howlaha qaramada midoobay ee Soomaaliya oo ku howlgala sida bulshada rayidka ah ee dawladaha adduunka sidaas ay iyaguna u yihiin bulshada rayidka ah ee qaramada midoobay waxayna dhiirigeliyaan oo horumariyaan barnaamijyada qaramada midoobay ee kala duwan ayuu yiri Cali Maxamed Geedi ilaa hadda ma jiro wax war ah oo ay maamulka jaamacadda ka soo saareen eedeymaha qaramada midoobay Geedi wuxuu ra'iisul wasaare ka soo noqday xukuumaddii ku meel gaarka ahayd ee uu madaxweynaha ka ahaa Allah u naxariistay Cabdullaahi Yuusuf Axmed isagoo xilka hayay intii u dhaxaysay sanadihii 2004 ilaa 2007 daawadayaal isku day ay sameysay bahda Samawada TV oo ay ku doonaysay inay Geedi eedeymahan wax ka weydiiso ayaa wali u suuragelin xukuumadda Soomaaliya ayaa qoraal ay soo saartay ku cambaareysay weerar gantaalo ahaa oo ay kooxaha Xuutiyiinta ee dalka Yemen Arbacadii ku qaadeen magaalada Riyadh ee caasimadda dalka Sacuudiga qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa lagu yiri xukuumadda Soomaaliya waxay si adag u cambaareynaysaa maleeshiyaadka Xuutiyiinta iyo kuwa taageera oo beegsaday
goobo dad rayid ah ay degan yihiin oo ku yaala magaalooyinka Riyaad, Najraan iyo Jasaan ee boqortooyada Sacuudi Carabiya oo ay la dhaceen tiro gantaalada balaastikada iyo diyaaradaha iskood isku kaxeeya oo lagu rakibay qaraxyo maalinimadii Talaadada 23 bishii Juun. gantaaladaas ayaa waxaa ka hortagay oo burburiyay ciidamada isbahaysiga ee taageera dowladda sharciga ah ee Yemen ka hor inta aysan gaarin goobihii bartilmaameedka u ahaa, taasi oo meesha ka saartay in dad rayid ah ay wax ku noqdaan. Soomaaliya ayaa sheegtay inay ku garab taagan tahay dowladda iyo dadka Sacuudiga difaaca amnigooda gudaha iyo dagaalka ka dhanka ah argagixisada nooc kasta oo yihiin. Soomaaliya waxay mar kale ku celinaysaa mowqifkeeda taageeraya dadaalada qaramada midoobay ee lagu doonayo xal horseeda nabadgelyo waara oo soo afjira dhibaatada ka taagan jamhuuriyadda aan walaalaha nahay ee Yemen si ay ku jirto dhowridda ammaanka iyo danaha wadamada dariska la ah ayaa lagu yiri qoraalka. Soomaaliya ayaa ku baaqday in si degdeg ah loo joojiyo weeraradaasi bahalnimada leh ee lagu beegsado dadka rayidka ah ee aan waxba galabsan ee brimageedada ah, iyadoo falkaasi loo tiriyo xadgudub cad oo loola bareeray dhammaan qawaaniinta iyo cahdiyada caalamiga ah, carqaladeynaya dadaalada caalamiga ah ee lagu baadigoobayo nabadda iyo dib u heshiisiinta. sidoo kale caqabad weyn ku ah nabadgelyada iyo amniga gobolka ayaa lagu soo afmeeray war-saxaafadeedka dowladda. ciidamada badda Iran ayaa sheegay inay saldhig badeed ka sameysanayaan badweynta Hindiya sanadka 2021. madaxa ilaalada jamhuuriga Alireza Tangasiri ayaa sheegay inay Iran doonayso inay ballaariso hardanka ay Mareykanka kula gasho gacanka Bershiya iyo marinka Hormuz. sida uu qabo Tangasiri, ciidamada badda Iran ee la geynayo badweynta Hindiya looga gol leeyahay in ay maraakiibta kalluumaysiga Iran ka ilaaliyaan wax uu ku sheegay burcadbadeedda iyo maraakiibta shisheeye. sida uu yiri, waa markii ugu horeysay ee ay Iran saldhig ka samaysato meel ka baxsan gacanka Bershiya, wuxuuna Tangasiri sheegay inay ka jawaabayaan amar ka yimid hoggaanka sare ee ruuxiga ah Ayatollah Ali Khamenei. sanadkii 2008 Khamenei oo sidoo kale ah abaanduulaha ciidamada qarabka sida ee Iran ayaa soo jeediyay inay ilaalada jamhuurigu ilaaliyaan maraakiibta kalluumaysiga ah ee ka joogta badda Oman iyo badweynta Hindiya. lama sheegin dal ku yaala gobolka oo ay saldhiganayaan, sidaas darteed waxay u egtahay inuu saldhigoodu guurguurayo oo ay saldhiganayaan biyaha caalamiga ah. Iran ayaa ku doodaysa inay la xifaaltamayso Mareykanka, hase yeeshee sida ay cadeysay dowladda federaalka Soomaaliya waxay boob ka wadaa biyaha Soomaaliya iyada oo la sheegay in laga tiriyay wax ka badan 112 markab iyo doonyo ay Iran leedahay oo halka ka jilaabta, waxayna u egtahay inuu qorshahan yahay mid lagu ilaalinayo kalluumaysiga sharci darrada ah maadaama ay badweynta Hindiya ka fogtahay Iran oo aan wax xad ah la lahayn haba yaraatee. muranada siyaasadeed ee la dhukan col iyo abaar mooga ah ee Soomaaliya ka jira ayaa keenaya in la waayo fursad lagu dhiso ciidankii badda Soomaaliya ee ilaalin lahaa xeebaha dalka Soomaaliya, maadaama aanu jirin qorshe qaran oo lagu mideysan yahay oo caalamka loola tago, balse taa beddelkeeda 100 mayl oo isdacweynaya loo diro. dhaxal sugaha Sacuudiga Mohammed bin Salman ayaa amray in la soo xiro qoyska sarkaal hore uga tirsanaa sirdoonka si cadaadis loogu saaro in uu soo gacan gariyo dukumiintiyo xasaasi ah oo uu la baxsaday. Reuters ayaa sidaas warisay. 4 ilo wareed oo xaaladda ka warqaba lana hadlay wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegay in dhaxal suguhu uu amray in la xiro qaraabada Saad al-Jabri, iyadoo ujeedadu ay tahay in sarkaalka sirdoonka hore uga tirsanaa lagu qasbo in uu Sacuudiga uu ku soo laabto kana yimaado Canada oo uu hadda degan yahay. xariga ilmaha waaweyn ee al-Jabri waxaa la sheegay in Mohammed bin Salman uu ku doonayo in uu ku helo qoraallo sir ah oo la qoray xilligii uu xafiiska joogay sarkaalka baxsadka ah, xilligaas oo uu muddo fog la taliye u ahaa Mohammed bin Naif oo ah Mohammed bin Salman in adeerkiis. waxa uu ahaa dhaxal sugihii hore ee taajka Sacuudiga, waxaana jigadaas laga tuuray sanadkii 2017.
ka sokow inuu doorkii dhaxal suganimada wareejiyay. Bin Naif waxaa mar kale la xiray bishii Maaj ee sanadkii la soo dhaafay, taasi oo qayb ka ahayd xariga saraakiil boqortooyada ka tirsan, kuwaas oo Maxamed bin Salmaan uu u arkay in ay khatar ku yihiin awoodiisa. Ilawareedyadu waxay sheegeen in maalmo kadib markii dib loo xiray amiirka, wiil 20 jir ah iyo gabar 20 jir ah oo uu dhalay Al-Jabri, in iyagana la xiray kadib markii la weeraray gurigii ay ka deganayeen Riyaad, waxaana ku xigay Al-Jabri walaalkiis oo la xiray bishii May. Mid ka mid ah ilawareedka ayaa Reuters u sheegay muddo ayay doonayeen in Al-Jabri, maadaama uu ahaa gacanta midig ee Maxamed bin Naif. Qoraaladaas xasaasiga ah ee uu hayo sarkaalka hore ee sirdoonka, sida ay Reuters sheegtay, waxay ka kooban yihiin akhbaar loo isticmaali karo kuwa siyaasadda uga soo horjeeda Maxamed bin Salmaan, iyo sidoo kale akhbaar si dhab ah u dhaawici karta dhaxal sugaha iyo aabihiis Boqor Salmaan. Sidoo kale qoraaladu waxay ka kooban yihiin akhbaar ku saabsan hantida uu dibadda ku leeyahay Maxamed bin Naif, taas oo Maxamed bin Salmaan uu u adeegsan karo amiirka xiran. Mid ka mid ah ilawareedka ayaa ahaa sarkaal hore oo amni gobol ayaa sheegay in Al-Jabri uu sidoo kale haysto faylal ay ku jiraan faahfaahin lacageed iyo macaamilka saraakiil sare oo boqortooyada ka tirsan. Qoyska Al-Jabri waxay hadda raadinayaan taageerada Mareykanka oo ah xulufo u dhow Sacuudiga, iyagoo rajeynaya in cadaadis uu boqortooyada ku saaro sii deynta xubnaha qoyska ee xiran. Guud ahaan daawadayaal, falanqayntii maanta waa naga intaan qaybta xigta ku kulmayno. Nabadgelyo.